ku xirnow Som Crypto kana faa'iidayso sida loo iibiyo ama la isaga iibiyo coinanka ugu muhiimsan haddii ay noqon lahayd ICO iyo wixii la mid ah. Assalaamu calaykum, waa Som Crypto video kale idin soo duubaya. Insha Allah waxaan ku bilaabi doonaa suuqa maanta waa hoos sida aragtiinba. Kuwani waa kuwa dhacsan sida Bitcoin toban, Litecoin, waxaasoo dhan waxba ma ahan, isla markii ay soo noqon doonaan insha Allah. Kuwa hadda kacsanna waa kuwa oo greenka ah. Sababta keentay suuqa inuu dhaco ama waxa koosgareeyey wax kale ma ahan, meesha dollarka daabacdo oo Federal Reserve-ka la yidhaahdo oo dollarka lagu daabaco, hay-adda dollarka daabacdo, ninka maamula wuxuu yidhi Facebook coin waa in dib loo dhigaa. Facebook coin waa in dib loo dhigaa ilaa la ansixiyo oo sharciyadiisa wixiisa. Sababtoo haddii Facebook coin uu hirgalo, dollarka waxaa yaraahaya awooddiisa markaas in la isticmaalo dollarka uu wareegaa yaraahayso. Marka hay-adda dollarka maamusha ama daabacda waxay tiri waa in dib loo dhigaa Facebook coin. Waa kaasaa. Haddii aragtiinna waa sii akhri kartiin. Waa kaasaa hoos wax dhan way ku qoran yihiin. Marka suuqa iyo dhicitaankiisa intaasay ahayd. Dadka markay kanoo kale arkaan waxay isleeyihiin bis waa crypto waa u dhamaatay ama suuqii waa khalaas way iska iibinayaan. Laakiin isla mar ahaantaasne waxaa dhacay SEC waxay approve gareeyeen coinka ugu horreeyay ee SEC approve gareysay. SEC waa kuwa yacni oo money laundering iyo waxyaabahaas dhan ka hortago Mareykanka oo maalmahan ku dheganayay oo la sugaya inay ansixiyaan cryptoga. Marka coinkaanay hadda ansixiyeen oo coinka ugu horreeya ansixiyeen ah. Marka waad dareemi kartiin haddii marba la bilaabo in la ansixiyo oo Blockstock la dhahaa waa ICO hadda insha Allah soo geli doono. Wixii macluumaadana waa sii akhri kartiin, waqtigaan aad ku sii badinin. Marka waa kaasaa. Waxaa kaloo iyadana jira coinkan waxaa la yidhahdaa Teso. Coinkan aad iyo aad u fiican yahay. Bangi Brazil ku yaala wuxuu siiyey 1 bilyan. Adi programkooda isticmaali doonaa Teso. Waana coinka keliya oo Coinbase loo ogolaaday in qofka passive income uu ka helo. Passive income waxaan ka wadaa mushaar joogto ah. For example, coinka marka aad ka haysatid in cayiman wuxuu ku siiyaa percentage. Marka waa kaasaa. Coinka marka haddii hadda waa intaas uu dhacay 13% uu dhacay xilligan hadda idin la hadlaayo. Refresh aan leenahay 12% uu dhacay. Haddii coinkan aad hadda iibsato yacni marar badan aan coinkan arkay waxaa isleeyahay waxaa ka heli kartaa 10%. Hadda haddaa ku iibsato qiimaha intaasuu joogaa 10 ilaa 9% waa ka helaysaa ilaa caawa ilaa berri. Marka insha Allah waa ku xirnow Som Crypto kana faa'iidayso sida loo iibiyo ama la isaga iibiyo coinanka ugu muhiimsan haddii ay noqon lahayd ICO iyo wixii la mid ah. Anagoo mar walba diyaar u ah inaan